𝗕兄𝗴𝗋𝗶𝗃𝗃 had the double blessing of being smart and beautiful. A striking Vogue cover model with even more ambitious plans for the future. Australia and the world beckoned. 𝗕兄was a beautiful, intelligent young woman who had so much to live for. She was a second-year medical student at university over in Bangladesh. But the plan was that she was transferring over and coming to Australia to finish off her medical degree next year, and she was excited about that. 𝗕兄𝗴𝗃𝗶𝗃 waa mid ka mid ah gabdhaha ugu quruxda badan qaaradaasi Aasiya, waxayna sanadii 2016 ka qayb qaadatay tartanka quruxda majalada Vogue ee India. 𝗕兄waxay ku dhalatay dalkaasi Maldives 18 bishii May sanadii 1996. dalkaasi ay ku soo barbaartay kuna soo kortay. gabadhani magaca inta badan ay caanka ku ahayd ayaa wuxuu ahaa hindida cascas, sababtuna waxay ahayd midabkeeda oo ahaa maariin qurux badan sida Soomaalideena oo kale. intaas waxa gabadhan u dheeraa indhaheeda oo buluug iyo cagaar isugu jiray, kuwaasi oo dabcan qayb lixaad leh ka qaatay quruxdeeda. almuhiim maadaama gabadhan midabkeedu uu shabaho midabka hindida maariinka ah, taas ayaa keentay in loogu waco magaca hindida cascas. haddaba maalin maalmaha ka mid ah sanadii 2014 waxay gabadhani la kulantay sawir qaado dalxiis ahaan u joogay dalkaasi Maldives, maadaama uu dalkani ka kooban yahay jasiirado qurux iyo bilic isku darsaday. taas ayaa keentay inuu kaalmaha hore ka galo wadamada ugu quruxda iyo dalxiiska badan dunida. 𝗕兄waxay sanadii 2014 ay dalkeedaasi Maldives kula kulantay sawir qaado dalxiis ahaan u joogay halkaasi, oo runtii markuu gabadhan arkay aad uga helay quruxdeeda. deetana way sii wareysteen, wuxuuna adigu markii dambe ka codsaday inuu sawir ka qaato, isagoo dabcan u sheegay inuu u soo bandhigi doono shirkadaha dharka xaysiiya. laga yaabaa in halkaasi ay shaqo fiican ka hesho. adigu 𝗕兄sidaasi ay uga shaqo bilowday xaysiinta dharka sanadii 2014 oo halkaasi ay ku soo caan baxday. haddii aanu xitaa fiirno sawiradii ugu horeeyay ee photographerkaasi uu ka qaaday gabadhan yar waqtigaasi oo dabcan ahaa kuwii ay ku soo caan baxday, waxaa ka mid ah sawirkan oo runtii qaab iyo qurux u dhammaystiran. 𝗕兄markii ay ku soo caan baxday xaysiinta dharka ee dalkaasi Maldives ayaa waxaa 2016 codsi u soo bandhigatay majalada Vogue ee India, taa oo runtii ka dalbatay gabadhan yar inay u noqoto wejigooda cusub. horta majaladan Vogue waa majalad caalami ah oo inta badan ka howlgasha wadamo badan oo Yurub iyo Aasiya ku yaala, waana majalad uu ku fikiro inuu ka soo muuqdo qof waliba oo shaqadiisu ay tahay xaysiinta dharka dalku doonaha ka soo jeedo. dabcan majaladani waxay soo saartaa sida shaqadeeduba tahay buug sanadle ah oo ay ku soo bandhigto dadka ugu dhar xaysiinta shidan daafaha caalamka ee sanadkaasi, waxayna dadka ugu shidan dhinaca xaysiinta dharka ay sawiradooda ku soo dhajisaa galka sare ee buugaasi oo iyagu ka caansan kana lacag badan dabcan kuwa kale sawiradooda lagu soo bandhigo gudaha buugaasi. haddaba gabadhan yar ee 𝗕兄waxaa 2016 soo dalbatay majalada Vogue ee India, sababtuna waxay ahayd maadaama gabadha yar loogu wici jiray magaca hindida cascas. adigu taas ayaa keentay inay soo dalbato. sidaan ognahayna dadka degan dalkaasi India waxay u kala qaybsamaan marka midabka la fiiriyo 2 qaybood, hindida cadaanka ah iyo hindida sida Soomaalideena maariinka ah. adigu waxay gabadhan yar isla sanadkaasi ay ka soo muuqatay galka sare ee majaladaas, taa oo dabcan u horseeday inay si saa'id ah caan uga noqoto daafaha caalamka. oo xitaa kadib dilkeeda mar aabaheed laga wareystay barnaamijka 60 minutes ee dalkaasi Australia, wuxuu sheegay in hadafka gabadhiisu uu ahaa inay noqoto model, qof dharka xaysiiya. kadib gabadhan yar dhamaadkii 2016 iyada oo ku sugan dalkaasi Maldives ayaa waxbarasho waxay u tagtay dalka Bangladesh, waliba qaybta caafimaadka. sida uu aabaheed gadaal ka sheegay, wuxuu yiri qorshaheedu wuxuu ahaa in 2 sano ee ugu horeeya ay Bangladesh jaamacadda gaar ahaan qaybta caafimaadka ka dhigato, kadib markii 2 sano dhamaadaan ay waxbarashadeeda iyo nolosheeda ay ka sii wadato dalka Australia. dabcan sida uu aabaheed gadaal ka sheegay, wuxuu yiri intaanay tagin dalkaasi Bangladesh waxay sii gadatay buu yiri dhar asturan maadaama ay u socoto dal muslim ah. inkastoo iyada lafteedu markeedu hore ay muslimad ahayd, haddana ma aqaan sababta ay u asturnaan weyday. adigu aabahan wuxuu yiri intaanay tagin kor waxay sii gadatay dhar asturan sida xijaab iyo khimaaro iyo waxyaabo kale, iyadoo dabcan ku ixtiraamaysa dhaqanka dadkaasi ay u tagayso ee muslimiinta ah. gabadhan yar markaas sidaan anigu u fahmay waxaa dhibka u keenay majalada Vogue ee India, sababtuna waxay tahay markii ay majaladani dalbanaysay gabadhan yar waxay joogtay Bangladesh, yacni haddii Maldives joogi lahayd oo kale wax saasamay noqoteen, laakiin Bangladesh ay joogtay. marka iyadoo gabadha yar joogtay Bangladesh ayaa waxay ka mid noqotay wejiga cusub ee majalada Vogue India. kadib markii ay gabadhan yar ka soo muuqatay bogga hore ee majaladaas,
waxay joogtay Bangladesh waxaana markaa social media dalkaasi Bangladesh qabsaday hadal hayn iyo weerar ka dhan ah gabadha yar kuwaasi oo dabcan ku dhaleecaynayay sababta ay sawirro timaqaawan u gashay iyadoo dhex joogta dal muslim ah miyaysan ixtiraamayn dhaqankeena iyo waxyaabo noocaasi ayaa social media dalkaasi qabsaday intaa kadib gabadhan yar ayaa soo hadashay oo qoraal soo dhigtay Instagram-keeda waxayna sheegtay in dhar asturan ay dalka ku timi ayna ku joogto taasina ay waajib ku tahay iyada iyo inay ixtiraamto dhaqanka dadka dalkan waxayna intaasi raacisay hal mid xasuusnaada anigu horta dalkiina uma aanan dhalan muwaadinima ii aad kala xisaabtamaysaan waxyaabaha dhaqankiina khilaafsan anigu dalkiina waxbarasho kaliya ayaan u imi markaan ka dhamaystana dee waan iska laaban laakiin sawiradan aan u dirayo Vogue India waa shaqadayda taasi aniga khaasii tahay waxaad ka hadli kartaana ma ahan ee sidaas u ogaada dabcan xaqna way u leedahay inay sidaas u hadasho gabadha yar markaa waxay deganeyd jaamacadda dhexdeeda gaar ahaan College-ka Islamic Medical College ee magaalada Rajshahi waxaana dabcan jaamacadaasi la deganeyd gabar asal ahaan Bangladesh ah oo ay saaxiib yihiin isku qolna ay seexdaan gabadhan iyo qof kale oo dabcan aan sawirkiisa la soo bandhigin ayaa ah dadka la isku wada raacay ee lagu tuhmayo inay dileen gabadha yar ee Rawda gabadha yar markaa kolkii lagu bilaabay weerarkii social media ayaa waxa u bilaabantay in loo soo diro hanjabaado isugu jira waan ku dilaynaa naftan ku dhaafinaynaa magacii dalkeenaad ku dheeshay dhaqankeenii nagumaadan ixtiraamin iyo waxyaabo noocaas ah gabadha yar markaa kolkii ay aragtay hanjabaadaha halista ah ee soo gaaraya ayaa waxay dadajisatay dhoofkeedii ay ku tagaysay dalkaas Australia si ay halkaasi waxbarashadeeda ugu dhamaysato intaas waxa u dheer gabadha yar in 2 maalmood ka hor dilkeeda oo ku beegnay dhamaadkii bishii 3aad ee 2017 ay wacday hooyadeed waxayna u sheegtay in shalay oo kale sun loogu daray cuntada ay jaamacadda ka cunto waxayna ku tiri dhakhtarayaan tagay oo isaga ayaa ay sheegay in cuntada sun lagu daray wuxuuna igu yiri is ilaali in lagu dilaa la rabaaye 27kii bishii hooyadeed sidaas ku tiri haddana 28kii bishii mar kale wacday waxayna u sheegtay in mar waliba oo jaamacadda ka baxdo uu gaari daba socdo cidda wadan aysan garanayn laakiin ay dareensan tahay in uu iyada daba socdo oo meeshii cagta dhigtaba ay ku arkayso taas markaa waxay keentay in aabaheed uu tigid Bangladesh soo jarto bisha afraad koodeeda si uu gabadhiisa uga soo badbaadsado ciddani sumaysa ee haddana daba socota laakiin muxuu ugu tagay waan arki doonaa taariikhdu maalinkay ahayd 29kii bishii 3aad ee 2017 yacni waa 2 maalmood kadib markay gabadha yar wacday hooyadeed maalinkaas ayaa Sam oo ah gabadhii saaxiibka la ahayd gabadha yar ee la dili doono sida sheegtay waxaan arkay bay tiri saaxiibtay oo iska soo daldashay muraawaxada dabcan waa sida iyadu sheegtay ee ma ahan sida xaqiiqada ah ee baaritaanka ka soo baxday waxayna tiri waxaan arkay saaxiibtay oo ku daldalan maro kana laalaada muraawaxada markii la weydiiyay lagu yiri sidee ayaad u aragtay qolka hoosta ayuu ka xirnaayay waxay tiri waxaan ka arkay albaabka meesha muftaaxa laga geliyo halkaas ayaa dalooshay oon ka arkay iyadoo laalaada kadib waan qayliyay waa la isku yimid albaabka ayaan jabinay oo sidii ayaanu meydka dhulka ku soo dhignay wax yar kadib macallimiintii iyo booliska ayaa meesha imaaday sidani waa sidii saaxiibteed sheegayso dabcan aabaheed wuxuu dalka Bangladesh soo gaaray 1 bisha Abriil gabadhiisana waxaa la dilay 29 bisha March markii uu aabuhu dalka yimi waxaaba ugu tagay kiis xiran oo isdil lagu soo afmeeray iyo gabadhiisii oo ogolaansho la'aan la iska duugay markuu jaamacaddii tagay uu weydiiyay gabadhiisii waxaaba loo tilmaamayba qabrigeedii iyadu isdishay markuu bariiska u tagay arrintii gabadhiisu weydiiyeen waxayna sidoo kale warka ugu soo koobeen in gabadhiisu ay isdaldashay markaasuu ku yiri haddaba faylka meydka gabadheeda isiiya oo sida aan badankeenu ognahay meydka markii la baarayo sawirada laga qaadaa faylna uu leeyahay lagu diiwaan geliyo caddayn kasta oo meeshaasi laga soo helo tusaale ahaan qofka la dilay ama isdilaa haddii jirkiisa laga helo caddayn yar waa la diiwaan gelin haddii madaxa juul laga gaarsiiyo waa la diiwaan gelin haddii uu qoorta nabar ku leeyahay waa la diiwaan gelin xitaa haddii uu gacanta xagtin yar ku leeyahay lagama tegayo ee waa la diiwaan gelin sidoo kale haddaba aabuhu markii faylkii la tusay ee uu fiiriyey sawiradii laga qaaday meydka gabadhiisa iyo caddeymihii laga helay jirkeeda waxaan lagu darin in gabadhiisu ay qoorta ku leedahay nabar sidii in suun lagu ciijiyay oo kale saaxiibteedna markii hore waxay tiri waxaan arkay iyadoo ku daldalan maro shalmad ah haddaba adigu daawada su'aalan ku weydiiyey suunka iyo shalmadu isku raad miyay reebayaan haddii qof lagu ciijiyo dabcan waa maya qof walba garanaya in suun iyo shalmad haddii wax lagu ciijiyo ay kala duwan yihiin raadka ay reebayaan dabcan haddii shalmad lagu ciijin lahaa gabadhan yar waxay ku reebi lahayd liidad yaryar oo khafiif ah laakiin markuu shaygu suun yahay sidaad u jeedaanba gabadha wuxuu ku reebay liid siman oo aad u madow taas laguma darin faylka sidoo kale waxaan lagu darin markii saaxiibtay tiri waxaan ka arkay duleelka albaabka gaar ahaan meesha muftaax laga furo markii la baaray waxaa la ogaaday in albaabkaasi uusan lahayn wax duleel ah haba yaraatee saaxiibteedna ay been sheegaysay taasina waa talabaad ee faylka ka maqan
sidoo kale midda saddexaad ee faylka ka maqan ayaa waxay tahay in saaxiibtada ay tiri aniga iyo asxaab kale ayaa albaabka jebinay dabcan faylkan waxaa ku qoran in markay bariisku tageen goobta lagu tagay albaabku nabad qabo oo aysan ka muuqanin cadeymo muujinaya sidii in la diray oo kale oo uu yahay albaab keliya la furay. waxa kale oo aabbuhu markuu baaritaanka sameeyey uu ogaaday in muraawaxadii la yidhi gabadhaada ayaa iska soo laalaadisay aysan ahayn mid iska caabin kartay culayska gabadhiisa oo dabcan sida uu sheegay wuxuu ku tijaabiyey kiish uu ku soo guray caro 55 kiilo ah markuu caradii ka soo laalaadiyey muraawaxadana dabcan wixii oo dhan dhulkay isla yimaadeen. taas micnaheeduna waxay tahay in gabadhiisu aysan iska soo laalaadin muraawaxadda ee taas beddelkeeda la ciijiyey. sababtana dabcan uu soo raacay wuxuu yidhi muraawaxad iska caabisay culayska gabadheeda oo 55 kiilo ah sidee ay isaga caabin weyday culayska caro 55 kiilo ah oo ay markiiba ula soo go'day. waxa kale oo faylka ku qoran in gabadha yar markii meydkeeda la helayay ay sariirta saarneyd halka saaxiibteed iyo laamihii kale jaamacadduna ay isku raaceen in iyada oo deldelan qolka loogu galay deetana laga soo dejiyey. intaas kadib markuu aabbahan waxaasoo cadeymaama bannaanka keenay ayaa wuxuu u wacday dhakhaatiir caalami ah oo ka kala imaada ingiriiska iyo australia. gabadha yarna maadaamay caan ahayd waxay taasi keentay in dilkeedu uu aada ugu faafo daafaha kala duwan ee dunida kiiskuna sidii la filayay uu kasii magac weynaado. markii uu aabbahani ka dalbaday booliska in xaqiiqda jirta ay sheegaan waxay ku adkaysteen in gabadha yar ay iyadu isdishay iyagoo dabcan ku marmarsiyooday sabab yar oo marka si loo fiiriyo aan macquul noqon karin. taa ay ku sheegeen inay isku dishay khiyaano oo boyfriendkeedu ku khiyaanay gabadh kale iyo waxyaaba noocaasiya. yacni waxa 100% la dhihi karaa bilayska laftiisa ayaa iska indha tiray xalinta kiiskan. kadib wuxuu aabihii dalbaday in boyfriendka ay boolisku sheegayaan la geliyo baaritaan laakiin waa laga diiday. haddana wuxuu dalbaday in gabadhan bilowgii sheegtay in meydka ay aragtay iyana la geliyo baaritaan waa laga diiday sidoo kale oo waxaa lagu yidhi maya shaqo kuma lahan arrinkan ee gabadhaadu iyada ayay isdishay kiiskanna ma ahan kiis dib loo furi doono. sidaan hore kasoo sheegay dhakhaatiir caalami ah ayaa ka imaaday dalkaasi ingiriiska qaarba australia kasoo baxay oo weliba ah khabiiro ku takhasusay baaritaanka meydadka. gabadhii yareed ayaa meydkeeda laga soo saaray qabriga waana la baaray waxaana la sheegay in qaybta bidixda ee garabkeeda ay ku yaaleen faro laakiin farahaas aan lagu darin faylka. sidoo kale waxaa soo baxday in gabadha yar aan aslanba lagu dilin maro ee lagu dilay suun iyada oo caalamka oo dhamme ay si walba isugu raaceen in gabadhan yar la dilay. ayaa haddana bilayska dalkaasi Bangladesh khaasatan kuwii kiiskan loo gacan geliyey iyo madaxda jaamacaddii uu dilku ka dhacay ay weli la soo taagan yihiin in gabadha yar ay iyadu gacanteeda isku dishay. waxaa lagu yidhi haddaba maxaad gabadha yar waalidkeeda oo maqan oo weliba aydaan ogolaansho ka haysanin meydka u caajisbaarteen eed u aasteen. waxay yidhahdeen annaga nooma taal sabab aanu meyd u haysanaa. almuhim gabadha yar tan iyo tii faylkeedu wuu furan yahay. shakhsiyaadkii bilaysa ka mid ahaa ee wakhtigaasi kiiskan loo gacan geliyey iyo madaxda jaamacaddii lagu dhex dilay gabadha yar midkoodna ma rabo in kiiskan mar labaad dib loo furo oo la caddeeyo qofkii dilay gabadhan yar. xitaa dadka qaar ayaa ku eedeeyey in madaxda jaamacaddu ay adeegsadeen awood lacageed si ay booliska ugu khasbaan xiritaanka kiiskan si ay iyaguna dabcan u ilaashadaan sumcadda jaamacaddooda. waxaana la isku wada raacay in gabadha yar la dilay sababtoo ah saaxiibteed waxay tiri maro ayay isku dishay. baaritaankan waxaa kasoo baxday in gabadhan suun lagu dilay laakiin aan lagu darin cadeymaha. sidoo kale saaxiibteed waxay sheegtay in gabadha yar ay kasoo laalaaday muraawaxadda markii lagu tijaabiyey culays u dhigmo culayska gabadha yarna dabcan muraawaxaddu markiiba way soo go'day. taasina waxay muujinaysaa in gabadha yar aysan muraawaxadda iska soo deldelin. sidoo kale saaxiibteed waxay sheegtay in ay aragtay iyadoo kasoo laalaaday muraawaxadda markii ay laamaha amnigu tageen goobtan ay ugu tageen meydka oo dul saaran sariirta. sidoo kale saaxiibteed waxay tiri duleelka muftaaxa ayaan ka arkay albaabka ayaan jabinay. adigu isku soo wada duuboo dhammaan hadalladan beenta ah ayaa si cad u qeexaya in gabadha yar aysan iyadu isdilin ee taas beddelkeeda gacan ka xaq daran dishay. waxaa kaloo la sheegay in gabadha yar 2 maalmood kadib dilkeeda in hawada laga saaray instagramkeeda oo dabcan ay ku xirnaayeen in ka badan 1 milyan oo qof. inkastoo dabcan markaasi aasnayd haddana ilaa hadda lama oga waxyaabaha lagu qarinayay instagramkaas. ugu dambeyn qisada ayaan ugu dheerataan filayaa inkastaynu dee kulley ka hayno muuqaalkuna dabcan halkan ayuu ku eegyahay wuxuu xaq u leeyahayna dee hala siiyo. sidoo kalena kanaalka subscribe-tiisa ayaan lala garamarin tan intaynu markale hawada ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa nabadgelyo.